السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشدي دولة عباسيين مid kamid ah dowladii ugu weynaa ee soo maray adduunka dowladda Cabaasiyiinta. Hadaba maanta waxaan ka hadli doonaa balashadii dowladda Cabaasiyiinta. Inta aan muuqaalkeen u guulgelin fadlan haddaad ku cusubtahay channelkeena subscribe share markii laga hadlayo dowladda Cabaasiyiinta sida dowladda shanaad ee Islaamka waxaa ka horeeya dowladda xabiibkeen Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo afarta khulafaa ar-raashidiin dowladii Umayyidiinta waxaa ku xigay dowladii Cabaasiyiinta. dowladda Cabaasiyiinta qaabkii ay ku dhalatay wuxuu ka duwan yahay qaabab kale ay ku dhasheen dowladii soo maray Islaamka. qaabkii ay ku dhalatay dowladda Cabaasiyiinta waxaa lagu tiriyaa inay ahayd qaab cusub taariikhda Islaamka. khulafaa ar-raashidiinta waxay ku yimaadeen qaab suura ah sidoo kale khaliifada Umayyidiinta waxay ku yimaadeen kadib markii uu Xasan bin Cabdul Muttalib khaliifnimada ugu tanaasulay Muawiya bin Abi Sufyaan. balse dhalashada dowladda Cabaasiyiinta waxay ku timid qaab kacdoon oo hubeysan kaasoo dhalashada darteed ku baaba'ay dhiig badan oo muslimiin ah. tanina waxay ahayd qaab cusub ama arrin cusub oo u soo wajahay Islaamka. waa kuma aasaasay dhabta ee dowladda Cabaasiyiinta Abu Cabbaas Cabdullaahi bin Maxamed bin Cali oo ku magac dheer as-Safaa waxa uu ku abtirsan jiray nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ay ku kulmayeen Cabdul Muttalib bin Haashim. waxa uu ku dhashay magaalada Xamiima oo hadda ka tirsan tahay dalka Urdun sanadkii markuu ahaa 104 hijriga. maalmihii uu xukunka Umayyidiinta ee Shaam aabihiis Imaam Maxamed bin Cali loo yaqiinay sujuud badane waxa uu ka soo degay magaalada Xamiima isagoo adduunyada uga go'ay cibaado darteed. dacwada Cabaasiyiinta waxayna ku bilaabatay si qarsoodi ah oo maamulaya Maxamed bin Cali kaasoo sii waday dacwada ilaa uu ka dhintay sanadkii 125 hijriga. waxayna dacwadaasi siri u sii noqotay ilaa 129 hijriga kadib markii Abu Mansuur al-Khurasani uu amray in lagu dhawaaqo isagoo taageeraya heshiiskii uu amray inay xirtaan dhar madow oo ah astaanta. kadib markii ay sii wadeen guushii u soo hoyay Abu Mansuur al-Khurasani oo ka dhanka ah dowladda Umayyidiinta. Abu Cabbaas ayaa bacay maalin waxa uuna salaada Jumcada ku dejiyay masaajid ku yaalo Kuufa. waxa uuna khudbad Jumcada ka jeediyay xaqa ay u leeyihiin dowladda Cabaasiyiinta inay khaliifnimada noqdaan. waxa uuna ku faanay dhawaanshiisa ay u dhow yihiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxayna dadka reer Kuufa ku amaaneen sidaa darteedna waxayna baayac kula galeen khaliifnimada sanadkii 132 hijriga markaas oo dhalatay dowladda Cabaasiyiinta. kadib markii uu dhamaaday dagaalkii caanka ahaa ee loo yaqaanay Zaab khaliifkii ugu horeeyay ee dowladda Cabaasiyiinta waxa uu ahaa Abu Cabbaas Cabdullaahi as-Safaa. Abu Cabbaas waxa uu xukumayay 4 sano isagoo dacwada u bedelay dowlad waxa uuna